أميرة حاج حسن حرشو waxay ahayd marwadii Allah naxariistay Umar Xaashi Aadan oo 3 sano ka hor isagii in la mid ah ay ku shahiideen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo dalkooda u shaqeynaya warkaan qoyska uu horeysa ku soo gaaray bismillah saad sheegtay waa sax 3 sano ayaa ka soo wareegatay xilli xasuuqii xanuunka badnaa foosh xumaa ka soo wareegatay xilliga ani waxaan ku sugnaa dalka Djibouti runtii waxaa isoo wacay oo isoo gaarsiiyey shakhsiyan taliyihii nabad sugidda maxamed sheekh xasan sidaas ayuu ugu soo gaaray oo markaa lagu sheegay in halka xasuuq ku dhacay inuu halka maarta qarax weyn ka dhacay umad badan ay ku dhimatay sida ayuu u sheegay iyo marxuum Allah yarxam maxaa diray markaa wallahi runtii waa dareemi kartaa maanta qofkii noloshaada qaybta ugu muhiimsanayd ka mid ahaa haddii aad weyso xanuunka inta ay la eg tahay laakiin runtii waxaan ogaa go'aanadiisa inay ka mid ahaayeen inuu geeriyooda inuu qaranka Soomaaliyeed badbaxo xanuunkaas waxaa ii wehliyey qorshahiisii geerid mar walba waa xaq oo waa la dhimanayaa Allah naxariistay Umar Xaashi wuxuu higsanayay runtii inuu dalka Soomaaliyeed qarannimadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo cisadiisiiba ay soo laabato maxaa yeelay dawlad ayaa lagu soo dhisay dalka Djibouti Umar weligiis wuxuu ahaa nin qaran ah go'nimo doon ah xilligii dagaaladii fogaa marxaladii kala duwanaana dalka weligii aan ka bixin u soo dhabar adeegay dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayay waxaan ku xasuusan karaa marxuumka inuu ahaa haliyay u taagan ummadda Soomaaliyeed shirkii Djibouti kadibna go'aansaday in la helo dawlad lagana guuro mugdiga loona guuro iftiinka runtii wuxuu higsanayay marxuumkan ku xasuusan karaa inuu la helo qarannimo dhibaatada badanna laga baxo saas darteed waxaan ku xasuusan karaa markii la yimid halkan dawladda la soo dhisay dawladda isla markii shirarkii ugu horeeyay ay gashay baarlamaankii fadhiyadii ugu horeeyay uu qaatay waxaa lagu ansixiyay shariicada islaamka maadaama ay nimankan hadda ku sifoobay runtii inay ummadda gumaadaan oo ma aragtaahay sida foolxumada leh ay markaas u adeegsanayeen hadallada ah dawladdan ma aha dawlad shariicada islaamka qaadatay ama ku shaqeynaysa ama ma aragtaahay waa adu sida ay ma aragtaa mar walba ay afka ku dhiftaan ay leeyihiin waxaa la wadaa dalal ajaanib waxaa loo shaqeynayaa ummad runtii isla markii dawladdu waxay hoos ka xariiqday iyo golihii baarlamaanka xilligaas inay dalka shariicada islaamka ku maamusho saas darteed mar haddii shariicadii la qaatay dalkii dadkana waa islaam boqolkiiba boqol waxaan ognahay Soomaaliya inay muslim tahay hadee si ummadda loogu wajaho waxa ay sheegayaan inay waxba ka jirin raggan alqaacidada ah sidaas darteed go'aanadiis waxaa ka mid ahaa in dalka mar haddii shariicada la qaatay ay maamulkii ugu sarreeyay yihiin mas'uuliyadna ay ka saaran tahay in ama uu geeriyoodo ama dalka uu qarannimadiisa helo maxaa yeelay haddaan qarannimadii iyo nabaddii iyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii aan la helin ma la heli karo meel lagu cibaadaysto masaajidii sidaan ognahay baad masaajidadii lagu cibaadaysan laayahay marka uu qarax dhacay hawsha Beledweyne ka socota maxay ahayd ifaalaha guud ee gobolka ka soo baxaysa maxaa lagu tilmaami karaa والله يعني هو 15 دقيقة كهر
ayaan wada hadlaynay runtii waxaa lagu yaqiinay dhanka hoggaanka siyaasadeed marka laga reebo nin nabadoon uu ahaa waxaan ku xasuusan karaa qabaa'iladii maxay ahayd toole wada hadallo badan abaabul badan wacyigelin badan ayuu ka dhex sameeyey waxaa laysku waafaqay in dalkani ummaddani aayaheeda ay ka tashato ummaddan aan rabin inay ummadda 50 sano soo socota runtii inay dhibaatadan ka baxdo go'aanadooda waxaa ka mid ahaa raggan runtii hadda meel ku shahiiday inay qaataan sidii horumar iyo loo gaarsiiyo howl nabadoonnimo ah ayuu ka waday howl nabadoonnimo iyo howl amniga oo markaa xilka u hayayba wuu isku waday marxuumka taa ayaan ku xasuusan karaa runtii allah naxariisto Umar Xaashi waxaa la geeriyooday dad badan oo haliyayaal Soomaaliyeed ah sidoo kale kadibna waxaa qarax lagu dilay wasiirro ka jiray xukuumadda Soomaaliya oo iyagoo dalkooda u shaqeynay sidoo kale maleeshiyaadkaasi ay qarax ku dilay dawladda marka guul ayay gaartay runtii waxaa la leeyahay karaa dhiigooda iyo dhiig la mid ah oo Soomaaliyeed ayaa u daatay guulaha la gaaray maxaa dawladdu sheegtay والله horta waa sax waa wax arin xusid mudan sanadka 2009 kan filayaa inay ragga ay ma aragtahay nimanka arxalaawayaasha naxariista daran leh ay runtii ay beegsadeen sababtoo ah team ay ahaayeen kasoo bilaw marxuumka Umar Xaashi iyo ragga Hiiraan lagula xasuuqay iyo wasiiradii ka dambeeyay oo aan ka xusi karo professor Caddo waayeel Axmed waayeel Torres Qamar Salebaan Colaad kulligood team ay wada ahaayeen team ka go'an dalkani in qaranimadiisii la helo runtii hoosta ka xariiqay ay ahayd ma isleedahay hooshii ay wadeen waxba ka suura galay ama waxba ay ka bilaabay wax badan ayaan dareemayaa runtii halganka dheer ay soo galeen intii ku geeriyootay intii ka soo hartay wali halganka ay sidaan guulo waaweyn way ka gaareen dawladda ku meel gaarka oo madaxweyne Sheekh Shariif oo madaxda ka yahay maxaa yeelay wuxuu ka mid ahaa teamkii go'aanada gaaray walina halgankii mira guulo waaweyn ayaa laga gaaray mahadu ka gaadho sida geesinimada leh iyo maxay ahayd toole hufnaanta leh uu istaagay madaxweyne Shariif iyo ragga la shaqeeyay oo hadda garbihiisa ah waxaan rajaynaynaa raas Casiir ilaa raas Kambooni in laga sifeeyo cadawga ummadda ee u soo guntaday meel ay ku runtaan markay waayeen Afrika gabaadka ka dhigtay dalka Soomaaliya ayagoo ka faa'iideysanaya burburka soo gaaray insha Allah waxa la gaaray xilligii laga xuruuray lahaa wayna bilaabatay dhameystirkeedan way soo markii qarxa uu dhacay oo dadka ay geeriyoodeen Allah naxariisto ay ku shahiideen falka makan jabta hooshii wada Umar Xaashi isaga dadka la midka ah wallahi habacsanaan badan way iska jiriyaysaa maxaa yeelay runtii nimanka siday ku socdeen xawli ay ahayd laakiin wax niyad jab ah oo ii muuqda maanta ma jirto maxaa yeelay mar haddii hadda gobolka Hiiraan oo xor yahay maanta intiisa badan Soomaaliya meelaha ay ka haysteen ay ugu horeyso Muqdishona maanta ay xor tahay waxaan leeyahay meelan ubadkeena ku korsanaho iyo dila wax badan ka bilowday ifafaali oo higsanayay guulo badan laga gaaray ayaan isleeyahay maxaa aragtay dawladda aad diraysaa oo ku saabsan maleeshiyaadka maskaxda laga xaday ee la shaqeeya kooxaha alqaacida Soomaaliya runtii waxaan rabaa horta inaan ummadda Soomaaliyeed ama ragga dawladda ku jira hadda wada howlaha horta nimankan dhan kastay nagala dagaalameen hadday mas'uuliyiintii ugu sareeyay dalka ama hoggaanka ama indhihii ummadda ay beegsanayeen haddii ubadkii yaryaraa ee jiilka ahaa ee future-ka ummadda ahaana ay maskaxda ka xadeen ay maanta maxaa yeelay kuma farxa aniga markii dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo dhankooda ka soo jeedo markii dhibaato ay soo gaarto kuma farxo daarfoor nimanka dhalinyarada ah waa jiilka ummadda
maskaxdoodana waa fresh hadba sidii loo hogaamiyaa ayay horta u hoggaansamayaan waxaan qabaa wixii howlgal ku jira markaasi in la iska celiyo way bannaan tahay waxaan dawladda iyo maxay ahayd toole ragga howlaha ku guda jira ee cadowga beegsanaya runtii waxaan ka faa'iideysanayaa aan u soo jeedinayaa inay ka faa'iideystaan wax alaal wixii lagu soo qabtay sida aan ognahay way sameeyaan inay arrinka ay wadaan ay sii xoojiyaan dhalinyaradii wixii la soo dumi kara in la soo dumo maxaa yeelay kan dhimanaya waa wiilkeenni kan qaraxa lagu soo xiray maskaxda laga xaday waa keenni marka daalumiintan ummadda u soo guntatay inaysan waxba dhaafin waxba inay reebaan go'aanadooda ka mid ma ahan shacab iyo nin siyaasi ah iyo nin madaxa iyo nin maskiin ah intaba ma cafinayaan